ugu horeyn assalaamu calaykum daawadayaal. Waxaad kusoo dhawaataan barnaamij muhiimad gaara leh aan uga hadli doono tacadiyada ama dhibaatooyinka loo geysto carruurta Soomaaliyeed. Barnaamijka waxaa marti igu ah aqoon-yahan, qoraa iyo la taliye ku magac dheer Maxamed Cabdirasaaq loona yaqaano Ugaaska. Marka koowaad Ugaas soo dhow. wadhowahay waa maasantaas ay soo dhaweysay aad baan kuu salaamay. Salaan ka bacdi haddii aan u guda galo barnaamijkaan rabnay inaan wada falanqeyno waxa uu yahay runtii carruurta Soomaaliyeed waxaa loo geystaa dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin jirdil. Muhiim ma ahan ilmaha in laga koriyo jirka, balse waxaa muhiim ah ilmaha in laga koriyo garaadka, maskaxda, aqoonta, dhinac walba. Laakiin haddaynu Soomaali nahay ilmaha inta badan waxaan diiradda saarnaa inaynu ka korino jirka, cunno fara badan aan siino. Laakiin muhiim ma ahan, waxaa muhiim ah cunuga inuu helo nashaad iyo farxad, maskaxda garaadkana lala koriyo. Bal arrimahaas iyo arrimo fara badan waxaan kala sheekeysan doonaa ama ila faaqidaya saaxiibka Ugaaska. Su-aasha koowaad aan ku weydiinayo waxa ay tahay dhibaatooyinka loo geysto ama tacdiyada carruurta maxaa ka mid ah? Horta waxaa jira xanuun loo yaqaano schizophrenia. Xanuunkaas waa disorder ku dhaca carruurta markay yar yihiin. Tusaale ahaan oo kale qofka bani aadamka ah marka uu dhasho oo mataqaanaa uu korayo waxaa lama huraan ah inuu si caadi ah si dadka caadiga u fikiraan u fikiro. Waxaa caadi ka ah sida inuu u fikiro inuu ka fikiro sida waxyaabaha dhacaya, waxa saameynaya waxyaabaha dhacaya. tusaale ahaan oo kale Nuuridiin qoraaga weyn wuxuu yiri markaan yaraa xanuunkaas igu dhacay sababtoo ah markaan wax arko oo aan dhaho hooyo waxaas waa maxay iyo aamus baa la dhihi jiray buu yiri ama aabbu weydiiyo ama waalid weydiiyo. sababtoo hadda caada in ilmaha oo kale la iska aamusiyo aan la tixgelin. Soomaalidu badanaa xanaano dheeri ah ilmaha ma siiyaan, iskuna dayaan inay fahmaan. Marka taas waa caqabad jirto. Marka Soomaalidu iskuma dayaan inay mataqaanaa ilmaha fahmaan oo u xanaaneeyaan si mataqaanaa qurux badan. Xanaano markaan leeyahay ilmaha ma aha keliya in cunno la siiyo, waa in mataqaanaa la fahmo waxyaabaha xun loo sameynayo. tusaale ahaan oo kale waxyaabaha ku khasbaya inuu waxa xun sameeyo. Tusaale ahaan oo kale ilmaha markasta ma ahan in markii la rabo in la toosiyo in lagu toosiyo la garaaco. qaab badan baa jira. Marka laga hadlayo tusaale ahaan oo kale waxaa jira theory la dhaho leveling theory. leveling theory waa maxay? waa ilmaha in wax lagu dul qoro. tusaale ahaan oo kale wiil baa qalad sameeyey, intii la sixi lahaa oo la dhihi lahaa waxaan iska daa oo waana la siin aqliga inta lagu dilo in magac lagu dhajiyo. Marka ilmaha tacdiyada ugu badan oo ilmaha haysta waa dilka oo kale in qofka ka weyn uu dilo, dugsiga lagu dilo, waalidkuna uu dilo. marka tacdiyada ugu badan waa noocaas. Caqabada kala jirtana waxa weeye ilmihii la iskuma dayo in la fahmo oo mataqaanaa psychology ahaan loo fahmo ilmihii. Waxaa kaloo jira carruurta marka ay yar yihiin waxaa dhacda inta badan cunug walba cunuga uu ka wen yahay inuu soo dilo. Runtii cunuga haddii uu kusoo noqdo xaafadda asagoo lasoo dhibaateeyey waxaa dhacda inta badan waalidiinta in cunugii asagoo markii horeba lasoo dilay oo cunug uu ka wen yahay uu soo dilay in mar labaad lasii dhibaateeyo lasii dilo oo la yiraahdo wiilka hebel muxuu kuu soo dilay, meeqa sanaan bariis kusoo siinay iyo waxyaabo fara badan oo maskaxdiisa cunuga uusan qaadi karin. Runtii waxaan waalidiinta ka codsanayaa in ay isku dayaan cunugani marka koowaad haddii lasoo dhibaateeyey mar labaad dhibaato labaad ha ugu darin. Isku day cunuga labada ilmood isdilay ama issoo dagaalay inaad maslaxa ama wanaag ka dhex abuurtaan oo aad maskaxda cunuga ahaan ka korisaan. muhiim ma ahan cunuga in jirka laga koriyo, laakiin waxaa muhiim ah cunuga maskaxdiisa in laga koriyo caqli ahaan. Walaalkay Maxamed Cabdirasaaq wuxuu noo sheegay oo ku magac dheer Ugaaska qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay ilmaha in caqliyan loo koriyo laakiin aysan muhiim ahayn in jir ahaan loo koriyo. Su-aasha aan weydiinaya waxa ay tahay waalidiinta iyaga laftigooda waxaa dhacday in caqabadahan ay soo mareen ay tahay wax soo jireena oo la rabay in laga gudbo
maxaad yacni baaq ama fariin ama aada leedahay bal caqabadaas haddii aad idinku soo marteen muhiim ma ahan ilmuhuna inay maraan bal waalidiinta maxaad fariintaada ama ku aadan in ilmaha maskax ahaan loo koriyo aqoon ahaan loo koriyo aada u diraysid maxay tahay horta qof kasta wuxuu soo maray iyo wuxuu usoo waayo joogay oo waayo arag usoo ahaa wuxuu jecel yahay asagoo markuu weynaado inuu sidii arko tusaale ahaan ininka markuu yaraa oo tusaalaha kale baadiyo oo kale haddii la ayrin jiray oo mataqaanaa meelaha lagu shiro kale laga ayrin jiray haddii aan waxba la weydiin jirin haddii mataqaanaa hawlo uusan qaban karin kale lagu khasbi jirin hadhow asaga markuu weynaado ilmihiina sidoo kale u rabaa marka dadka soomaalida ah waxaa habboon in qofka ilma caruurta marka la dhalo aan keliya tirada la saarin mataqaanaa tirada inaan la saarin awoodda ee la saaro tayada qofka marka loo soo koriyo si naxariis leh qofka marka loo soo koriyo si mataqaanaa waano iyo waxu sheeg ah qofka markii wax loo soo baro si hanaan leh oo hufan hadduu dad kale uu ka duwanaanaya oo ka naxariis badnaanaya laakiin markii 10 cunug inta la dhalo 10 cunug midna si fiican kaloo barin si fiican akhlaaq loogu yeelin hadda sahan oo kale ilmaa dhashay ilmihii isagoo 9 jira oo 9 bilood jira oo dhabta hooyada ku jira baa hooyadii misna uurka la qaadaysaa ilmihii way waaya xanaano laakiin hadda sida quraanku sheego kale haddii 2 sano la nuujiyo ilmihii wuxuu helayaa xanaano ku filan hadhowna wuxuu noqonayaa mataqaanaa qof si fiican u fakara tusaalaha kale caanaha hooyada maskaxiyaan qofka si fiican bay u koriyaan marka waxaa leeyahay intii aan tirada awoodda saari lahayn tayada waxaa la diiradda hala saaraa leedahay tayada awoodda hala saaro tusaalahan oo kale 6 cunug baa dhashay 6 cunug maalintii mid kasta afar qabta kamar qabtay dugsi baa u dirtaa maalintii dhan meelahaasi hadday rabaan boodboodayaan hadhow markay weynaadaan way ku saameynaysaa dhalinyaradana dadka soo kora qofka hadduusan yaraantiisii naxariis iyo mataqaanaa hadduusan qofku naxariis kusoo korin hadhow waa adkaanaysaa si uu dadka asaguna ugu naxariisto waalidiinta soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa ilmaha inay maskaxo ahaan u koriyaan ay muhiim tahay runtii waxaan xasuustaa markaan yar ah mararka qaarkood markaan meelaha kubadda ku ciyaaro oo kale ama meelaha lagu nashaadka ama entertainmentka ilmaha ay ka helaan sida xeebta oo kale ama meelaha runtii qofka markuu uusan ku dhalan meel aan xeeb ahayn oo kale xilliyada roobka ay da-aan meelaha biyaha fadhiistaan oo kale aan damaashaad u aado maalinta khamiista ama jimcaha hadhow soo noqoshada waxaan dareemayaa xanuun ama walbahaar fara badan aan ka dareemayo dhankii dugsiga oo kale macalinka aan ka dareemayo dhankii waalidka oo kale ma ahan waxaan aniga keliya aan dareemi jiray waa wax ay caruuro fara badan ilaa abtuna oo ay dareemaan laakiin su-aasha meesha taala waxa ay tahay caqabadaas sidee looga gudbi karaa runtii waxaan baaq u dirayaa ama tala aan siinayaa macallimiinta ama waalidka ilmaha waqtigooda inay u manage gareeyaan ama waqti 5 beri oo kale markii ay wax baranayaan oo kale 2 beri ay u ogolaadaan cunuga ilmaha markuu yar yahay waxaa ku jira farxad fara badan ciyaar fara badan reereen fara badan runtii 2 berina haddii xabsi guriga looga dhigo ama guriga inuu usan ka bixin caqabad looga dhigo runtii cunuga wuxuu dareemayaa ciriiri fara badan ha loo ogolaado ilmaha inay maalmaha khamiista ama jimcaha ay waqti soo qaataan ay soo ciyaaraan meelaha dalxiiska oo kale la geeyo si cunuga mar walba u dareemo farxad runtii barnaamijkeena wuxuu noo noqon doonaa mid taxano ah xalqada koobaad intaan ayay noo noqon doontaa intaana barnaamijka ka bixin guntii gabagabadii waxaan rabaa inaan walaalkay kelmad ama 2 kelmad aan siiyo oo u diri lahaa runtii waajibaadka laga rabo waalidka iyo waajibka laga rabo macalinka horta arrintaasi waajibka laga rabo macalinka oo kale macalinka dadkii wuxuu barayaa qur-aan buu dadka baraya tusaalahaan oo kale ama maadi buu barayaa ardayga ma ahan inuu markasta uu dilo waa inuu isku dayaa inuu nafsi ahaan ruuxi ahaan qofkan u fahmo
tusaale ahaan oo kale hadda hadduu ilmuhu page qur-aan ka baxay tusaale ahaan oo kale haddii uu lagu dhiirigeliyo oo dhaho war pageka badan baa ka bixi kartaa intaa yartaa xifdi wax yara waxaa laga yaabaa in u fudaato dhiirigeli noqoto. laakiin haddii la dhaho haddaadan ka bixin mataqaana haddaadan ka bixin waa lagu dilaya ama lagu garaacaya, dad badan baa laga yaabaa inay ka baxaan. laakiin intaa in lamid ah baa laga yaabaa inay diinta iyo mataqaanaa maaha inay iskuulka iyo waxbarashada iyo la nacaan magarad. marka dil keliya waxba laguma toosin karo. waxaan isla soo gaarnay barnaamijkeena gabagabadiisa. barnaamijkeena kan ma noqon doono kii ugu dambeeyey, balse wuxuu yeelan doonaa xalqo. xalqadani waxay noqon doontaa xalqadii ugu horreysay. waxaa ku xigi doonto dhowr xalqo aan diiradda ku saari doono waajibaadka laga rabo macalinka, waajibaadka laga rabo waalidka, iyo waajibaadka laga rabo walaalka ilmaha ka weyn. runtii ilmaha haddii yacni loo tababaro hab wanaagsan, hadhow wuxuu noqon doonaa ilmo waalidka anfaca, walaalka anfaca, bulshadeena anfaca. laakiin cunug kusoo barbaaray cadaadis fara badan in la dilo, in la dhibaateeyo, runtii si walba wax loo baro, hadhow markuu weynaado wuxuu isku dayayaa asagana inuu bulshadii ama uu dhibaateeyo kii ka yaraa. marka waxaan idin leeyahay inta i daawanaysa, qofka hadduu yahay waalid, hadduu yahay walaal, iyo hadduu yahay macalin, in ilmaha la xaq dhowro, ilmaha la daryeelo, maskaxda, jirka, dhan walbana laga koriyo. waad mahadsantihiin. aniga iyo ugaaska waxaan idin leeyahay kulankan iyo kulanka xiga intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ha ilaawina haddii meesha guduudan inaad farta, suulka intaba aad ku riixid si aad macmiil nooga dhigatid janalkeena.